bulshada isticmaasha media social media waa in laga helaa dad nabadoona oo wanaaga iyo dabka biyo ku shuba dadka nabadeeya shaqshantaay shakhsi iyo shakhsiyaad oo maanta oo weerar ku yahay ma jirto hadafkayga ayaa la bedeli karin oo ah xifdu diin in diinta la ilaaliyo dhaqankeedana la ilaaliyo la xurmeeyo ummadana dhaqanka loo ilaaliyo dhaqanku waa wax muhiim ah tan xigto Soomaalidu waxay jeceshahay wadaadka ay rabto inay wax ka dhageysato waa wadaad rabo inuu ay rabaan inuu xumahooda indhaha ka xirto marka kaanani ma anfacayo waxaan anfacayo wadaadka qalalaadkiina tilmaamaya ni dhiiri gelinaya insha Allah ta'ala wiilkii dhalinyarada ahaa xalay yiri waxaan joojinayaa fankii show ciid barnaamijka loo bixiyay maran habaabinta ahaa waxaan kaloo aad ugu xumahay in maanta $50 fankii uu gaaray 20 ayuu ahaa 25 baa laga dhigay 30 baa laga dhigay maanta waxaan rabaa dadka ducaada aniga majahay haysto inay bal maanta munkarku oo konton maraya inay ogaadaan konton oo hataa la isku dilaayo oo hataa ciriiri oo naqanayo waxaa xalay soo gaadhay saxaafada rag kamid oo aan ku kalsoonahay iyo rag hadda ila joogaba 80 inay rag dadka qaar ka dhigi rabaan marka gabadha ka qayb galayso showga kow horta intii showga tigin waa inay soo qaawisaa Maria milfa oo cuuradeeda aan asturi karin ay ugu tala gashay inay soo qaawiso anu wax ma qariye iyo bukuyeerigi iyo wixii ay ismarinaysay magcabki ayaa u dheer iyo taxigi taqriiban waa 100 ama $130 baa ku baxayso marka $130 inaad naar ku iibsato waqtigaagii aad gashato ibliis dhagahaagii aad wax xun maqashiiso maxaa yeelay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dhaguhu way zinaystaan indhuhuna way zinaystaan gacmuhuna way zinaystaan buur marka inaad meel walba ka dimbaawdo adigoo muslima ee ramadaankii maalinkiina afkaagu xirnaa habeenkii qiyaamkii taraawiixda taagnaa tobankii dambaan ku jirnaa hadalay habeenkii kowda habeenimo inta la soo kaco ilaa waagu cibaado aan ku jirnay wax isqaba kara maaha waxa loo baahan yahay marka inuu aqligu shaqeeyo diintu waa dhaqanay diinta in lagu dhaqmo anu intaas baan ku talinaya diinta in lagu dhaqmo Allahu Rabbul Alamin federation ma doonaayo waana diidiyay federation alla waa diidiyay alla cid oo rabo waa cidan إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هيرادين ربيين والله ثم استقاموا هذا لو يتوصنادين وتوحيدك هي استقامتي marka waxa laga rabaa Allah rumaysanahay maxaa ku daree toosnaan xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam nin baa saxaabiga uu yimi markaasuu islaamka wax iga sheeg gadaashaada aan cidna wax weydiinaynin weel aad u qurux badan u dhiyo wuxuu yiri qul aamantu waan rumeeyay billahi alla thumma istaqim markaad alla rumaysane toosnaatu maxay tahay alla wuxuu ku leeyahay if'al la taf'al Soomaaliya marka iga raali naqda icafiya qalbiga waxay ugu qabanina anigu xaq la qaraaya ma aqaan baraha bulshadana laba imaanin social media-hana uma gelin waxa la rabaa marka nimanka showga qawanaya waa ducaatun ala abwaabi jahannam albaabada jahannamay taagan yihiin kaalaya waqtigiina jahannamo ku carbuunta kaalaya ilaahay ka careysiya kaalaya alla warkiisa diida kaalaya fuuq baxayni dhowaan
maxaa yeelay adigoo ama 30 maalmood soomay ama 29 maalmood soomay soomku labadaasba uu dhacaya ama 29 buu noqoni ama 30 inaan buuxino marka adigoo 30 maalmood soomnaa in hal maalin lagu fuuq bixiyo ka warama hal maalin iyo 2 saacadood in lagu fuuq bixiyo ileesho waa dimbaawday indhihii aad ka dimbaawday dhagihii aad ka dimbaawday socodkan xataa aad meesha ku tagaysaa dimbiya waa inaan ogaanaa marka insha Allah taala nimanka fanaaniinta ah dhalinyaradana waxaan leeyahay war dad badan baa fanaanka ka baxay fanka maanta dadka iyaga ugu qawowsan xasilooniye haystaan daganaashay haystaan quruxay haystaan nuur baa ka muuqdo waan arkay dad fanka ka baxay dad ku dhagan ma ogtahay bani aadamka waxun lagama waaye dad fanki ka baxay dad ku dhaganaan haynaa markaas waxa lagu leeyahay maanta Sheekh Shantaayo dadka bal madaafiicda ka yaray maxaan yareeyna dad fanki ka baxo lagu dhagan yahan haynaa oo la caynayo waxa waaye dhiiqada iyo aladiidninimada iyo dulmiga aan ku jirno kaala nala imaaw ee wax nagala wad waay marka wax suurtagalaya maaha insha Allah taala waqtigu uu dhamaaday insha Allah taala waxaan aniga iyo naftiina ma aan ku walinayaa inaan amarka Ilaahay qaadano dariiqa nabiga sallallahu alayhi wasallam aan ku qaadano inuu xaramka aadino xumaantiisa iska wato wala yaqaana inuu xaramka tago hadda xaramka tagana Allahu rabbul alamin oo run sheego oo yiraahdo Allahu beedkaagiyaan u soo muraaday waan xanuunsanahay dheeftana adiga bixiya dhibkana adiga qaada waxaan ka codsanayaa anigoo adoonkaagiya inaan ku run sheego kuguna inaan kula heshiiyo oo maadaama aad tahay sareeyaha wax walba iska leh dulmina aan banaanka ka istaago aan ugu naqanaynin laakiin ilaahu beedkaagina waan aadaya beedkaagi hadaan ka soo baxana ibliis aan raali gelinaya maxaa yeelay ibliis Allahu rabbul alamin buu warkiisa diiday ibliisna wuxuu ku faanay oo aadam ugu faanay oo yiri aadamow waxaan kaaga fiicanahay amarka Ilaahay aan diiday marka ninkaas maanta xaramka jooga maalinka bishar ay ramadaan ay dhamaatana showga qawanayo waa ibliis warkiisii wada ibliis markii la yiri u sujuud aadam wuxuu yiri qaala ana khayrun minhu khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min din wuxuu ana aniga ayaa khayrun ka khayr badan minhu aadam khalaqtani wad abuurtay min naarin dab ayaad iga abuurtay wa khalaqta wad abuurtay hu aadan min diinin dhobad ka abuurtay mugdiyad ka abuurtay marka allow waan ku soo muraaday baahida iyo muraadka aan kugu imidanay dabadeedna xumaanaan ka daba marinaya anigu idabdaran u arkaa waa anigu adilada quraanka isticmaal ayay sunnah nabiga sallallahu alayhi wasallam waana idabdaro dulmigi midkii oo ku jiro midka weyn hadal ku sii jiriya anigu waxaan aqaanaa diinta islaamka barashadeeda iyo qaabka wax loo laqbeeyo ummadana xumaha looga digo dhaqanna hablahaynu uma lahayn anigu waxaan ku soo koray soona gaaray kuna aqliyeystay hablaha Soomaaliyeed la xoodiyo oo la bariyo adeeru ikaadi hablahayno la bariyo oo markay ninku ku adkaysto walaalkeed hoos galo aabaheed oo hoos galo hooyadeed oo hoos galo dhaqan xumada maanta jirto anigu meel nooga timid ma aqaan inay inta hablahayno social media ay fadhiistaan ay dhahan anigu waxaan garanaya ma aha wadaad dhaqankana yaqaan diintana yaqaanaan ahay hablahayna waa jawharad waana dheeman habluhu maxaa yeelay musalsalaadkay badsadeen musalsalaadka ay badsadeen waxaasna waxa weeyaan qofku markuu badsado way ku saameynayaan waxaad badsato ayaa ku saameynayo marka insha Allah taala han noqdo qof oday ah han noqdo qof dhaqtara han noqdo qof fanaana dhaqan uma lahayn waana cudur cusub ay hablaha Soomaaliyeed qayb kamida maanta ku dhacay inay inta gabdhaheenu baraha bulshada soo fadhiistaan hebela igu daadshay hebela igu dhooreeyay inay dhahaan ay saxaafada la wareejiyo waa dhaqan xumo waxyaabaha aan ka digayna kamid tahay anigu waa yeelanahay maantana
zamanka iyo xilliga aan ku jiro iyo duruufaadka igu gadaaman ayaa waxay ii diidayaan inaan haween xiriir la yeesho runtii culays badan baa isaaran cidii og baa og marka wax suurtagalaya ma aha insha Allah taala anigu waxa culays igu filan talada Allah rabbul alamin qaabkan u daryeeli lahay maxay badeecaya maalin walba suuqiya badeecada aan sheegayo waan soo dhili tiraya badarka markii la sameeynayo waa la haadiyaa xaarin baa lagu shubaa waa la haadiyaa qashinka laga guraa mooy baa lagu shubaa ka bacdi la tumaa mar labaad baa la sii haadiyaa hadale qaabkan ku soo karo waay idan marka anigu badeecada aan dadka u sheegayo waan soo dhili tiray karaya inta soo meelood baan ka soo qaadqaadaa marka waxa weeyaan waxa culays igu filan caruurtayda qaabkii kursiimadoodii tarbiyadoodii muslimiinta maalin walba fariimahan u gudbinayo marka culays kala ma qaadi kari